بسم الله الرحمن الرحيم وحامانتا شirku yeeshay dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada shirkan ayaa waxaa lagaga hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay warqadii uu soo saaray maalin dhaweyd Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu shaqada kaga joojiyay ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Maxamed Xuseen Roble madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay isku raaceen isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaameen warqadda uu soo saaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalintii dhaweyd isla markaana waxay go'aan ku gaareen oo isku waafaqeen in la dedejiyo doorashooyinka shaqaduna ay ku sii socoto sideedii hore ra'iisul wasaaraha qaranka ayaa shir gudoominayay shirkan ayaa wuxuu ku dhacay khadka Zoom-ka ama fogaan aragga loo yaqaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa asagoo kulankaasi ka maqnaa isla markaana aan raalli ka ahayn kulankaasi inuu dhaco waxay u muuqataa in awoodii lagala wareegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waayadii u dambeysay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waayadii u dambeysay dunida go'doon ka sii noqonayay asagoo halkaasi uu kaligiis waxa weeye guri ku jiro Mareykan isla markaana uusan wax xiriir la lahayn dalka siyaasiyiinta dalka jooga iyo kuwa dibadda isla markaana caalamku ay ku taxaluujiyeen isla markaana ku khasbayaan inuu si degdeg ah doorashadu u dhacdo isla markaana uusan wax faragelin ku sameyn arrimaha doorashooyinka ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waayadii u dambeysay qasiyo qalalaase waaweyn oo arrimo waaweyn ku sameeyay dalka isagoo hor istaagay in doorashadu ay dhacdo isla markaana ay ku dhacdo doorashadu waqtiga loogu talagalay Maxamed Cabdullaahi ayaa waayadii u dambeysay isku sii dhajinayay kursiga asagoo ku talagalay inuu ciidan iyo awood u adeegsado kursiga kuna haysto isla markaana khilaafkii iyo siyaasiyaaday haatana waxay u muuqataa inuu dunida go'doon ka sii noqday. Assalaamu calaykum warahmatullahi